wargeysyada dalka Turkiga ka soo baxa ayaa daabacay in xogaha ay heleen ay muujinayaan in qaraxii dadka badan ay dhibaatada ka soo gaartay ee 28 bishan ka dhacay ee Control Afgooye ay ka dambeysay dowladda Imaaraadka Carabta oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda howlaha dowladda Turkiga ka wada Soomaaliya iyo dalal kale. Wargeyska Yeni Safaak waxa uu sheegay in xog uu helay ay sheegayso in dhaxal sugaha dalka Imaaraadka Maxamed bin Sayid Al Nahyan uu lahaa amarka qaraxii Sabtigi Muqdisho ka dhacay ee in ka badan 100 qof ay ku nafaysay, waxaana wargeyskan uu sheegay in bartilmaameedka weerarkaasi uu ahaa shaqaale Turki ah oo wada laamiga ka dhisay magaalada Muqdisho. Wargeyskan waxa uu sidoo kale sheegay in qaraxaasi lagu soo beegay isla maalintii dowladda Turkiga ay isku diyaarinaysay in taageero ciidan ay siiso dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya ka jirta. Xogtan waxay sheegaysaa in Amiir Maxamed bin Sayid Al Nahyan uu bixiyay amarka qaraxii xoogga weynaa ee weli saameyntiisa Soomaaliya iyo Muqdisho laga dareemayo. wargeyskan wuxuu sidoo kale sheegay in cadeymaha uu hayo ay kamid yihiin baaritaano iyo xiriiro uu sameeyay uu ku ogaaday in qabanqaabada qaraxaasi ay dowladda Imaaraadku waqti badan gelisay si gaarana uu lahaa dhaxal sugaha. ujeedka qaraxaas waxaa lagu sheegay in la qalqal geliyo howlaha taageero ee dowladda Turkiga ka wado dalal ay kamid yihiin Soomaaliya iyo Liibiya. dhowr qarax oo ka dhacay dalalka Soomaaliya, Liibiya, Ciraaq iyo Syria ayaa sidoo kale hore loogu ogaaday in dowladda Imaaraadku ka dambeysay sida wargeysku daabacay. warbixintan lagu daabacay wargeyska aanu xiganayno Yeni Safaak ee Turkiga ka soo baxa waxaa lagu sheegay in dowladda ay kamid yihiin Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar ay xoog badan xilligan gelinayaan sidii ay u joogsan lahaayeen caawimaadda Turkiga ee Soomaaliya ama xataa ugu yaraan uu u go'i lahaa xiriirka Soomaaliya Turkiga ka dhaxeeya. dowladaha khaliijka qaarkood ayaa taageera sargaalka dagaalka kula jira dowladda la aqoonsan yahay dalka Liibiya, Khalifa Haftar, halka dowladda Turkiguna ay taageero u fidiso dowladda caalamku aqoonsan yahay. Turkigu waxa uu aaminsan yahay in dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar ay dadaal badan ku bixinayaan inay kala jaraan Soomaaliya iyo Turkiga iyagoo argagixiso adeegsanaya, sidoo kalena ay doonayaan in ay jiraan xiriirka Turkiga kala dhaxeeya dalalka Suudaan iyo Liibiya.